غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. الله تبارك وتعالى يا مهد اسكله مدن إلا أمانه والله مهد عليه كمال إيادما يسترنان له وعيب يدمنان أن سنب الأولى تبارك وتعالى إن السيئي وحكستو إنه هيسنه نوعي دونها أهادين نعم كربي تبارك وتعالى إن لتركوبي كرين وحكم إذا ربيين تبارك وتعالى إنه إن قد ضد مسلمين وأهل الإيمان والدين له وحي إلهي بحي وحي قال سنابو ينسيه تبارك وتعالى إن ربك تبارك وتعالى أضون النقطة أضون نمدي لغو أبوري لغو هليشيوت فهنتو ربك أنا تبارك وتعالى أتكحر أنتو طاعدي سجدتو وأدومدي سأوتشعليه كدر متاي وحسهلا معه الله تبارك وتعالى أتشددو إنو أبوري وإن عابدنا أولا ليا وقت ملي meelay ku dhamaatana male dhamaadkeedu waa markay geeri kugu timaado inta ka horeysa xilli walba iyo sanad walba iyo waqti walba ilaahay adoonnimadiisu laazim bay inugu tahay inaan taacadiisa gudano amarkiisana qaadano sida rabbiga yiri tabaaraka wa taala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin rabbiga aabud intay geeridu kaaga iimaanayso iyadoo ay sidaas tahay ba hadana rabbi tabaaraka wa taala wuxuu inoo sameeyay waqtiye khaas ah oo si gooni ah in dadaal ziyaada Allah bixiyo looga faa'iideysto ilaahay ugu talagalay tabaaraka wa taala waqtiga qaybo kamida bilaha qaar kamida sanadka qaybo kamida ayuu rabbi tabaaraka wa taala hadana inoo sameeyay oo aynu taacada siyaadsano waxa inugu soo beegan oo inugu soo foodle bishii barakaysnayd ee Ramadaan fursad qaali ah Allah tabaaraka wa taala cidii uu waafajiyo ka faa'iideysigeeda waa cid Ilaahay tabaaraka wa taala khayr u dhameystiray way cidii ka faa'iideysigeeda ka qada oo ay dhaafto isagoon ka faa'iideysanina sida nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ruuxaasi waa ruux la xirmaaniyay oo khasaaray oo qaday waay bishii barakaysnayd baa marka inagu soo dhow maalma kalaaman marti qiimo badan zaman qiimo badan ilaahi tabaaraka wa taala ciduu jecel yahay buu gaarsiiyaa waafajiyaa kadibna taacadeeda inuu jaaniska uga faa'iideysto ilaahi taacadiisa tabaaraka wa taala waxa rabbi tabaaraka wa taala marka mahadi ah oo ilaahay tabaaraka wa taala ku amaanayo ku mahadsan yahay inuu ina soo gaarsiiyay xilligan hadda aan joogno aynu bishii qarka u saaranahay waa nicmo weyn qaar baa ramadaankii hore ka qayb galay oo walaalaheen ah allana tabaaraka wa taala uusan jaanis damba u siinin inay ramadaanka ka qayb galaan oo maanta dhulka ka hooseeya jeclaan laha tamaninaya inay maanta soo noqdaan oo taacaadka noocana ay sameeyaan laakiin rabbi tabaaraka wa taala ma qadarin inaga lafteena ma hubno maalmaha inoo laaban inaan gaari doono ma hubno waa gacan uur ku jirta laakiin Allah tabaaraka wa taala baan weydiisanaynaa hadduu waqtigan banna soo gaarsiiyay inuu bisha barakaysan nagu simo ka faa'iideysigeedana ilaahayna waafajiyo tabaaraka wa taala حيالي سلف رضوان الله عليهم يددك أخيارتها قيمها بدنا مضنان خاصة بي الله هيد بشهر رمضان زمن كالو أصلا الله هيد لح بلوضو بشهر رمضان كهر ريس بي الله ويدي سنشرين إنو رمضان قارسيو محيالي وكان سان ميلك اللي لقيه اليوم waxa marka Allah tabaaraka wa taala bilowga ugu horeeyba ay ka bilaabanaysaa
إن ربك تبارك وتعالى كوغرا حي عمري إنو كسي إلى أتسوق قادو وشيء أقوى النعمة وين قيمة وين نكفر ذا محيل ربي تبارك وتعالى أدون كيسا حدود شعليه لبا الرموت بيسوق درا عمري قول الله ديريو إيه عمري قال دير أو ضاعد إلهي وقفا إيديستو هدي الضاعد عبادة بدنته لكن عمري كوكو قابته وحكافي عن روح عمري قال الله ديريو عمري قال ضاعد إلهي كعمره وحنبي قلنا كسوغا صلوات ربي والسلام عليه لبنين الربادية أبا النبي قوي صلى الله عليه وسلم ربادية هذا عدد وحي أهانشرتي إيرانان إيه مركي النبي قوي مادان صلى الله عليه وسلم إنين السؤالها كلحشونين ماشى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هيبت أي النبي كهيبي سنة ين سؤال بدن أي كلق بنشرين أعرابت مركي مادان صير ربان بوحوي دين شر النبي صلى الله عليه وسلم مركز سؤاله هذا جوابت هذا الصحابة دون كفاية سنشرين ومن مركز قارب وحي بتشعلان شرين انتي مادان رباديها النبي سؤالك هل دالنا علم كفاية يستاهل لبر ربادية أبا يمت النبي صلى الله عليه وسلم يدبا ويدوح الرسول كإله يوم ضدك يا أخير بضا النبي صلى الله عليه وسلم ضدك وحا أخير بضا نين عمري سنة ديراضي عمل كي سنة وناكسنادي كي كلا هذا نوح الرسول الله يوم عمل السماء يوم محا أخير بضا كي هرمحو ويديي ضدك يا أخير بضا كنوح ويديي عمل كي أخير بضا أو فضي بضا والنبي يقول صلى الله عليه وسلم عمل السماء وحا أخير بضا إن الدنيا ضافته أديكو أو عرب كاغو إلهي ذكري جيسا كوكوين يهي أدو إلهي حصيا أو عرب كاغو قوين يهي أو ذكري إلهي أو حيو إن الدنيا ذا كبح ذو الضافط يا أو خير بدن عمل بالنبي يقول صلوات ربي والسلام عليه بمعنى خاتمه ونكسن أو إلهي ذكري جيسي الشهادتين كي خير لغوغو ختمه عرب كاغو ذكري إلهي كنا دقاقيا أيا عمل له خير بدن برسول كل صلوات ربي والسلام عليه لأن وحوي إنما الأعمال بالخواتيم أرنتوا خاتم ضوء هل كاس يسوق بيشوان يسا نبي صلوات ربي والسلام عليه دتك وحى خير بدن روح عمري سنة ديرادو عمل كي سنة وناكسن هذا محو إليه لأن الروح مؤمن كطاعي سنة خير ككد دالية مال كستو أكرباي درجة سياسة سكن الساعة مركي أكردان وضاع إلهي لا يمادو إلهي أكتس الدرجات بك سياسانيا جندي والدرجات بو سياسانيا ذنوب الله رافيا إلهي بأسي دوانيا عمري قدر يطاعد السداسي روحا أقد جيان ميتك أو خير بدن ضدك وحاسوغن وسيدوك للنبي أنك صلوات ربي والسلام عليه وحاورنا يا طلحة بن عبيد الله طلحة وحليه هي نبي وحا من صلوات ربي والسلام عليه لبنين ويوضع إسلامين هل مربى إسلامين مركي وضع إسلامين لبضوضا مدبا مدكا كالكدد البضنا وحق خيرك إيا طاعة إيا عباداتك كغسيتي وكغ خير بضنا ننكي سيدا أدد البضنا لبضوضا إيه سيتي أيات دولي جهاد الدولان في سبيل الله بوكقيب قالوا الراعي كدبنا الدولان كيبا لقد ليو شهادو قاتل كي كلنا سند بوكسي دنبيو سي تشوغي كدبنا سي عادي يسغل انت سند كدب طلحة وحليه وان رياضي بيدي waxaan ku riyooday buu aniga oo jannada irideeda jooga labadii nin ayaan irida jannada kula kulmay buu waa riyo labadii nin markaan irida jannada kula kulmay oo meesha wada taaganahay joogno ayaan ruux baa jannada ka soo baxay buu mid baa jannada ka soo baxay markuu ka soo baxay labadii nin kii dhimashada ku dambeeyay ee iska dhintay markii horena laga cibaado badnaa kiibuu idan siiyey oo jannada gal yidhi wuu kaxeeyey jannaduu geliyey kii kalena weli waa taagan yahay
kaa markuu u idmayoo jannada geliyey ayuu soo laabtay markaasuu kii kale kii shahaadada qaatay ee duulaanka ku dhintay ee intuu noolaana dadaal ka badnaa kiibuu haddana u idmayoo jannada geliyey labadoodii markuu jannada geliyey buu aniga igu soo noqday ani meeshii baan taagnahay anuu ii soo noqday markaasuu yidhi buuhi kaclaalo kac iska noqo maxaa dhacay adiga warkaagu ma dhowo wakhtigaagu weli waaye adiga wakhtigaad meeshan geli lahayd lama gaadhina kac iska noqo buu dalxa hurdadii buu ka kacay riyadiisii buu dadka uga warramay waa lagu sheekaystay dadkiina waa la yaabeen waa la cajabeen war sidan waxaan see ku suuroobi karaa warkii nebi maxamed buu gaadhay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh oo sheekadii bay uga sheekeeyeen markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam maxaad la yaabteen yaa riyadani dhankeed kala yaabteen la yaabku muxuu yahay markaasaa waxay yidhi rasuul ilaahayow labada nin markay isla noolaayeen kanaa dadaal badnaa kadibna wuu duulay oo jid ilaahay buu ku diiloo shahaaduu qaatay oo jid ilaahay baa lagu dilay kanina waa ka dambeeyoo sanad buu ka sii dambeeyey kadibna kanaa jannadii ka horgalay seebaa nin mantuu noolaana dadaal badnaayoo kan ka sitay kadibna khaatumada cimrigiisuba shahaado noqotay seebaa jannada looga horgalay oo ninkani jannada uga horgalay waa cajiib markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi war ninkani soon sanad kama dambaynin kan shahaadada qaatay haabay dheheen sanadkaasoo ramadaan ma soo gaadhinoo ma soomin sanadkaa gudihiisana intaasoo salaadood soo ilaahay uma tukanin haabay dheheen nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi labada nin darajadooda inta u dhaxaysaay waa inta dhulka iyo samada u dhaxaysoo kale samada iyo dhulka inta u dhaxaysay isu jiraan sababtu maxay tahay sanadkuu ka dambeeyey cibaadaadku samaynayey soonkii iyo salaadduu la yimid ayuu ninka shahaadadiisii ku dhaafay oo dadaalkiisii hore kaga hormaray oo uu samada iyo dhulka ay isu jirsadeen sidaas daraaddeed man taala khayru nnaasi man taala cumruhu wa xasuna camalu ilaahay hadduu isugu kaa daro cimri dheer iyo camal wanaagsan waa darajo aad u sarraysa way allaha tabaaraka wa tacaala marka xilligan ina soo gaadhsi abwaabtii iyo iriddii ramadaanna inugu soo simay iyadoo in badanood walaalaheen ka mida aan jaaniskaa la siinin allah waa mahadsan yahay waana inaga mudan yahay inaynu nicmadaa xusuusanno oon ilaahay uga mahad celinno tabaaraka wa tacaala kadibna aan weydiisanno rabbi inuu inugu simo inaynu bisha inta inooga hadhayna uu rabbi inugu simo ramadaan ina gaadhsiiyo markaan gaadhnana rabbi tabaaraka wa tacaala uu ina waafajiyo inaynu ka faa'iidaysanno lianna in badan baa ramadaan gaadhaysa oo ramadaan maraya iyagoo waxba ka faa'iidaysan in badan baa ramadaankaasi janno iyo khayr lagu kasbanayo dadka qaarkood cadaab iyo cadho ilaahay tabaaraka wa tacaala ay kasbanayaan marka ilaahay ramadaan hana gaadhsiiyo hanana waafajiyo inaynu ka faa'iidaysanno in sha allahu tacaala ramadaan ka hor maxaa laynaga rabaa maxaa inugu aadan maxaan la imaanaynaa seen bisha u qaabilaynaa وإن شاء الله خطبك ينوصل صعده صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بإيمان وأمان وسلامة وإسلام ووفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك